السلام عليكم واتاي داوديال لaba dhacdo cajiib ay soo gudbinna dhacdada koowaad dhacdada cunistii safiirka Faransiiska ee Congo dhacdada labaadna waa wiil yar oo hooyadii ka dhigtay cabqari ama sageesi wax ku soo kordhiyay dunida guudkeeda dhacdada koowaad aynu guda galno dhacdadii cunista safiirka Faransiiska marka ay Congo madax banaanida ka qaadatay Faransiiska waxa uu diray safiir iyaga matala Kinshasa caasimadda Congo ayaanu degay sanad kadib magacaabistiisii maalmaha kamida isagoo fasax ku jira ayaa safiirkii Faransiisku waxa uu baxay Layrsi iyo Ugaarsi isagoo ku sugan kaymaha Congo ee aadka loogu dalxiis tago kaymahaasi oo ah kuwa aad u qurux badan ayaa waxa uu meel fog ka arkay dad meel fog kaga soo hordaya waxa uu maleeyay inay soo dhaweynayaan isaga balse xaqiiqadu waxay ahayd in dadkaasi ahaayeen qabiil hilibka dadka cuna way qabteen way gowraceen waana ay kariyeen kadib baa raggii qabiilkii isugu yimaadeen oo ay cuneen Faransiisku aad buu uga cadhooday dhacdada foosha xun hanjabaad adagna wuu u diray Congo waxa uu ka dalbaday magdhow 100 milyan gaadhaya oo la siiyo qoyska safiirkii la cunay madaxweynihii Congo waxa uu shir la yeeshay xukuumaddiisii waxa uu kala tashaday awoodda ay dawladdu leedahay bixinta kharashka magdhowga ah balse jawaabtii wasiirka maaliyadda ayaa ahaa khasnadda dawladdu kuma jirto kharash inta leeg shirkii waa u dhamaaday dawladda Congo waxa uu dirtay Faransiiska warqad oranaysa dawladda Congo waa ay ka xuntahay dhacdadii cunista safiirkiina maadaama oo aanay dawladdeedu hanti badan haysan oo ay awood u weydii bixinta kharashka dalbateen waxaan idin soo jeedinaynaa in cuntada safiirkayga waddankiina jooga nagana gudoomo ixtiraam badan oo aan idin hayna awgeed sheekadani ma aha mala awaal daawade laakiinse waa sheeko dhacdo oo dhab ah oo ka dhacday Congo dhacdo labaad oo ah mid aad u cajiib ah wiil daayar oo hooyadii gees ka dhigtay sababtu waa maxay daawade maalmaha kamida wiil yar oo lagu magacaabi jiray Thomas Alva Edison ayaa yimid gurigooda waxa uu warqad u sidoo dhiibay hooyadii waxa uu ku yiri macallinkayga ayaa warqadan ii soo dhiibay waxa uu ii sheegay qofka kaliya aan warqada u dhiibiyo inay tahay hooyadii waxay ka qaadatay warqadii si ay u akhrido isaguna waa u saak fadhiistay hooyadii si ay hooyadii ugu sheegto waxa warqadan ku qoran hooyadii markay aragtay waxa warqada ku qoran way ilmaysay deedna waxa ay bilowday inuu akhrido warqada waxa ay bilowday sida tan wiilkaagu waa mid aad u caqli badan oo u aqoon badan dugsigana waa mid aad u yar marka isaga loo eego kamana uu helayo macallimiin aqoontiisa ku hagta oo tababaran ee fadlan adigu u noqo macallin oo waxbar sanado badan kadib hooyadii waa ay xanuunsatay deedna waa ay dhimatay Thomas waxa uu noqday daahfurihii ugu weynaa qarnigiisii maal la yidumcay inuu xasuusiyo hooyadiis dib u akhriyo waxa uu furay sanduuq ama khaanad yar oo uu ku jiro waraaqo badan waxa uu ku dhaxarkay warqadii uu macallinkiisa u soo dhiibay waxa uu furay warqadii waxa uu bilaabay inuu akhriyo waxa aanay u qornayd sida tan wiilkaagu waa mid maskaxda ka xanuunsan oo waxba fahmin umana ogolaanayno inuu dugsigeena dib dambe u dhigto Thomas waa wiilmeeyay waxa uu ogaaday in hooyadii ahayd qofka noloshiisa bedeshay dhiirigelin badanna siisay buugiisa xusuus qorka ayuu ku qoray hadalkan Thomas Alva Edison waxa uu ahaa wiil yar oo maskaxda ka xanuunsan hooyadii ayaa ka dhigtay kan ugu caqliga badan qarnigan hadallada wanaagsan ee dhiirigelinta daawade waxay ka caawin karaan qofka inay bedelaan noloshiisa oo idil ogowna hooyadu waa dhiirigeliyaha ugu weyn ee nolosha aadamaha Thomas Alva Edison waxa uu ahaa mid ka mid ah daahfurayaashii ugu weynaa ee taariikhda aadamaha soo mara waxaana loo aqoonsan yahay daahfurihii ugu weynaa gudaha Mareykanka waxa uu ahaa sidoo kale ganacsade daah qaaday casriye cusub sidoo kale waxa uu ahaa shakhsigii alifay qalabka ka qayb qaata koritaanka korontada iyo isgaarsiinta qalabka duubidda codadka iyo sawirada waxa uu ahaa nin alifay nalka maanta aynu isticmaalno ama salaydhka maanta aynu isticmaalno sidoo kale waxa uu dunida dhaxal ahaan uga tagay shay baadho badan oo muhiim u noqday caalamkan guudkiisa daawada maanta barnaamijkeena intaas aynu ku soo koobaynaa si ay dhiirigelin noogu noqoto fadlan fiidiyowga like saar siina share garee wassalaamu calaykum